oo codsaday in ay dad badan joogo inay sugaan wasiirka waxaa jiro waa inaan fair noqonaa gabdhaha oo muhiim u ah jaaliyadeenna oo lafdhabar ah ayaan ayagana siinaynaa si aan u dhammaystirno barnaamijka waxaana ka codsanaynaa gabdhaha inay raalli noqdaan oo codkoodii iyo araartoodii iyo fikradooda soo gudbiyaan waqtigana aad buu nagu cariiri yahay marka fadlan waris walad ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم بانو عريسنا because waa la ii daba mariyay salaam banti wayna salaamay salaamta muslimka aynu ku salaamay oo ah salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxa ma codkayga ma maqlaysaan miyaa waxaan salaamayaa mudane ama jalle cabdi waaxid عمر عثمان وسيرك عمر عثمان عبد واحد عمر علمي عمر مقعي كنت إيو مدني الحلبان أحمد عثمان عمد عثمان حسن لما حلبان نضع وقاسية نبضون نضع dadka sharafta leh meesha jooga ugaasyada marwada wasiirka laki dhamaantiin waa in salaamaya warqadu iguma qorno magacyada waa gagafaya nabadoonada ismada ugaasyada waxgaradka dhamaantiin waa in wada salaamaya salaantaas oo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan dadkiinaan kale oo ka soo qayb galay oo na soo sharfay وكم هذا علينا هيا والسلامتهين سلامتها سواء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحرب على بكر ما إنك هذا الضبط على إسايستاي دور كان لسه تعبنا هياي وحوي دبعت حد الكور مدحوينها وهرتجي إن هذا دبعه وحلي نا 5 minutes بعد لهذا وهذا دين ملك سلسكو عبوري سيل الله الله يا وابلي هابه ملك وابلي عبورين هيا هل كان ترجي لسكو حجي عليه 5 minutes 1 minute وهذا وحاس حقوق معها حقنا معها وحوي هل يسسيو قبله أيها ماشى دستي ورد أيها سنية أيها حقوق هذا كله علي مركز رجي إنه وحلنا حقوق ذا قبلها قرطة وحوي دب أول نقطة وشدة عن دب أول نقطة وحوي مد وحلاه مقالة إن يدك إنه قرب تشوجه وصوت جابنا هيا قضب كلامنا وحن فريا والسيرك عبد واحد عمر عثمان علمي رالك هذا بنفرح يا وامير وحوي هرت الدلك يا مركا كنت اسمه شيخنا هل بان هذا لكم يجري يقرأ هذا ورقم سوى لي حناجيه وحوي مد وسير كان وحوي فرتين أنا كنت بنايو وحوي ونقنا هاي دلك إنه بربرسين هاي دور يلا بعتوا سنة وبربرسنا دلك يجوا حب بربريه شيء أيام دول كان جاي حتى أنا استيل أسقى دفعها هاي استقول لكم بعدين هاي وحنا أقيبيه dad anaga Soomaalidu xidigta shanta xidigooda waxay tilmaamaysaa dalkii Soomaaliya kuwii qaar haystay baa dib looga iibshay waxa weeye oo kale marka anagu ma anaan garan waxa loo adeegsanayaa dad shisheeye oo cadaan ama waxba yaa lagu meeraysan shisheeyaa soo galay shisheeyaha soo galiyay annaga la isku kaay adeejiyay annaga wax la isku kaaysiiyay annaga $100 barbar loo riday annaga dalka yaga duminayna annaga naloo adeegsaday shisheeye jooga ma jiro shay hadii xabad joogtana annaga soo ka haysanay bal horta annagu an ka wada hadalno oo waxaan xisbiyada samaystay oo sheekh hebel iyo sheekh hebel wax ma dilo waxbuu badbaadiyaa waa magac la samaystay runtu waa midda waxa weeye magac la sameeyay sheekh waxbuu badbaadiyaa wax ma dilo marka dib Soomaali ahaan inta isku waraysataan dadkiina gudaha jira hadda kuwaan madaxda shalaba qaar baa qoryisitay waa iga daadin bariiska ciida weeye marka waxa weeye riyaliga qori wax lagu xalliyo waxa wax lagu xalliyaa hadal hal wada hadlo
dib Soomaali ceelka ay ku jirto oo jaallo wasiir aad sheegtay sida kaliya looga soo saari karaa waa Soomaalida oo is afgarata oo miiska runta la soo wada saarto laakiin ma saarna hadda runtii ma ay saarna hadda sababtu maxay tahay waa mid walba xabad buu qaadan xabad wax lagu xalliyo xabad adduunyada waxba lagu xalliyo dalka yaga shisheeyihii burburiyaa wali ku jira waxaan sheekh hebel leh waxa weeye kulli waa laga iibiyay dalka $100 bay qaateen waa ognahay waxaan magacaan al-shaydaan baa iraada al-shabaab ka sheeganaya waxa weeye dhaqaale xumo dadkan lacag bay ku kaxaysteen lacagtuna shisheeyaa siinahaya dalka yaga la burburinaya balka adiga awood adinka u leh jaallo wasiir waxa weeye iska afgarto bal inta geed isku timaadaan waxaan reeyay warkaalkii dawlad hebel iyo dawlad hebel waxba yaan halkaan loogu soo orordi qoladaan waa qoladii shalay wadanka iyaga burburisay adduunyo meelo kale hal aado tartan hal la galo waa midaas waa wasiirka iskale war annaga reer dadka iyaga diasporada dibadda joogo war haddaanu sidii hadda jananku sheegay oo kale al-shabaab waxay dadka ku kaxaysataa dhaqaale dawladana dhaqaale la'aan baa haysata marka ma kari karnaa inaanu lacag inta iska aruurino aanu bahalkii iikeen iska dhaafay 30,000 oo ciidana aanu tababarano oo kotonkoto kala darday war ma heli karnaa annagu war dalkayagii waa tegay annaguna waa tagnay hadday saan ku sii socotana dalka waa la qabsanahayaa waa la qaatay ee hurdada ka kaca ciidu uma maqra ceelna uma qodnaa la oran jiray gaaxaan rabo kama hadli karo hadalku waa iska kay dhexyaacaya dhabarkaa layga taabanahayaa waqtigii baa dhammaaday iga raalli ahaada adinku kaca Soomaaliya kaco sida isku dhaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh